بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام أصحابتي قالية. هدي هوي آتاي dhacdo in caruurtaadii adiga asla noolaan weysiin oo laga qaato hooyooyin waxaa jira markii la kala tago aabayaasha ay ka qaataan caruurta. Aabaha markuu sa sameynayo waxaa waaye hooyada ayuu weli rabaa rajo ka leeyahay, laakiin ma dhihi karo rajaan ka leeyahay meelo laab inay soo maraan waaye. Umadeena noocaasayta way ka buuxaan. marka haday dhacdo inuu ka qaato caruurtii ku guuleysto, mararka qaar waxa waa laga awood badan yahay, mararka qaar waa laga guuleysanaa in laga qaato caruurtaadii si walba lagaaga awood badnaado. waa inaad isku daydid in caruurtaadii aad dib u heshid xaq adiga aad leedahay. waa inaad isku daydid haddaad awoodi weysid oo awoodii ay ku diido, hal mid naftaada u sheeg oo ah caruurtiyaa koriyo, hooyo aabaa koriyo. hooyo aabo oo wada jooga ay ku qurux badan yihiin inay koriyaan, laakiin way ahaan weyda sooma inuu aabihii haayo inuu hooyadii hayso wax ka dhexeey male. hooyadaasi u wanaagsan caruurta inay hayso. marka haddaad adiga aad awoodi weyd oo hooyo aad tahay, hooyooyinka marka caruurtooda laga qaato xanuunka ay dareemayaan, qofka marin xataa waa sawiran karaa, waa arki karaa, waa dareemi karaa. kii marayna hadda waxaa ma loo sheegayo waxay gaaraysaa hooyada mararka qaar caloosheeda inay mara ku xirto oo aad ay u welweliso caloosha sidii qof inuu ka geeriyoodo kale ay dareemaysaa. yani cunugeeda yay rabtaa mana heli karto. yani wax ciil waay, wax aad u xanuun badan waay. qofkaan soo marin oo aad u qalbi adag wuxuu ku leeyahay maxaa ka macne haddii caruurta qofkii korinaayo maya. waxaa jirta nidaam, waxaa jirta hooyo umuuma waxa la dhahay maxaa la dhahaa hooyanimay u samaysan tahay. waxay leedahay dareen hooyanimo. dareenkaasiyati ayaa diidaayo inay dhahdo qofkii doonaha koriyo. hooyada saxda waay. hooyana way jirtaa caruurteeda tuureysa waa la ogyahay, laakiin hooyada saxda tii caruurteeda ku mintida, tii caruurteeda waxaa waaye u jihaada sida ayada ay u haysan lahayd. haddii ay dhacdaan ka wadaan in aad haysan weyd oo lagaaga awood badiyo, naftaada ha dayacin. xasuuso inay ku sugayaan caruur, sababtooda inaad naftaada u daryeeshid waajib waay. haddii taada adiga aad ilowdid tooda inaad ka fikirto aad tiraahid caruurteeda dartooda dadaalaa inaad tiraahid, oo rajada aadan dhigin oo aadan quusanin oo aad tiraahid beri ayaa is arki doona ani caruurteeda, oo aadan gooynin xiriirkii telefoonka aad isku daydid inaad si kale aad ula hadashid. oo mar walba haddii meel kale ay joogaan oo tagi kartidna waxaa waaye usbuucii hal mar, bishii hal mar, intii ilaahay kuu sakheer waxaabaa u tag. haddii colaad iyo cadaawad ay idinka dhexeyso familka qofka aad kala tagteen la heshii waxweyn maaha. xataa haddii lagaa gardaran yahay raalli ahaaw dheh waayo caruurtaada dartooda u sameynaysaa. raalli ahaaw cunugaaga dartiisa waxaa waaye adoo lagaa gardaran yahay haddaa u tiraahdo waxweyn maaha. bikoos cunugaaga u dhahad inaad aragtidaa rabtaa, cunugaagii ayaad rabtaa inaad maxay ahaatay aad nabad kula noolaatidaa rabtaa. marka ilaahay subxaana watacaala dadka kuwa qalbiyada aad adag i kala geynayo hooyo ubadkeeda ayagan ilaahay soo hanuuniyo. wax aad u xanuun badan waay hooyo iyo ubadkeeda in la kala geeyo. dareenka ay marayso hooyadaas ilaahay subxaana watacaala ayaa og. dareen ahaan waxaa dareemi kara, adiga waa dareemi kartaa haddaanay kusoo marin markaa sawiratid, laakiin xanuunka ay leedahay qofkii soo maray waxaa waay wax aad u xanuun badan waa, wax aad u xanuun badan waa. xanuunka la sheegsheegayo afka maaha, aad u xanuun badan yahay. xanuun nafsaani, xanuun jir ahaan ayaa ku dhacaya hooyada markii caruurteeda loo diidayo. marka ilaahay xaqa allah idin tusiyo kuwa kala fogeeyo hooyada iyo caruurteeda. ilaahay subxaana watacaala allah idin soo hanuuniyo. haddaa hooyo tahay adigana waxaa waaye noqo hooyo quwad leh. cunugaaga markaa quwad aad leedahay waa kugu faanaya. hooyada daciifka cunugaaga xataa ma kugu faanaya, waayo xaqaaga ma dhacsan kartid, cunugaaga ma u doodi kartid, cunugaaga ma u dagaalami kartid, cunugaaga dartiisa wax ma u sameyn kartid, ma kugu faanayo. laakiin markaa quwad aad leedahay, aad quwadaadii oo dhan aad muujisay, laakiin lagaa guuleystay, cunugaaga waa kugu faanayo. hooyaday wax walba way samaysay si aan aniga agteeda u joogo, laakiin waa laga xoog badiyey. cunugii waa arkaya caruurta hadday yaryihiin xataa waxaa waay 6 jir 7 jir ay yihiin, wax walba way fahmayaan. wax walbana waxaa maskaxdooda iyo caqligooda ayay ku daawacnaanaysaa. xataa 5 jir 4 jir hadday yihiin ku daawacnaanaysaa. kuwa waxaa jira 3 jir oo xasuusanaya markay 3 jir ahaayeen wixii ay sameyn jireen ama lagu sameyn jiray oo raad ku reebaya jir maskaxdooda. marka ilaahay subxaana watacaala haddii caruurtaada ay kaa maqan yihiin ood hooyo tahay, ilaahay idin kulmiyo adii caruurtaada.